مدن مدحوينه awaamirtan siisay ay ahayd in maamul wanaag iyo maartay la muujiyo isla xisaabtan iyo daahfurnaan si ilaha dhaqaalaha maartay loo kordhiyo adeeg aan shacabka aan u haynana uu u noqdo adeeg daahfuran oo la arki karo hergelinta nidaamka iyo xaqiijinta hanaanka anshuur bixinta qaybta saddexaad mudan madaxweyne aan diiradda saarnay waxay tahay dakhli abuur in aan ballaarino ilaha dhaqaale iyo nidaamka maareynta maaliyadeed qaybaha inoogu muhiimsan iyo kordhinta shirkadaha iyo xaqiijinta hanaanka anshuur bixinta qaybta afraad oo ayadana ka mid ah tiirisha ama principally qodobada ugu muhiimsan ee aan ku howlgalaynay ayaa ah adeeg bulsho garoonka maadaama uu yahay yani albaabka laga soo galayay ee dawladda uu yahay image-kii maartay muraayadii saad noo sheegtay hay-adaha dawliga ah ay iska dhex arkayaan oo dhammaantood adeega aan bixino aas-aas u ahayd annagu marka waxaan diiradda saarnay adeega bulsho ee garoonka maadaama garoonka sayid maxamed cabdulle uu yahay garoon caalami ah ay ku tiirsan yihiin shacabka soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba in adeeg bulsho oo ku dhisan dhowrista iyo qadarinta sharafta muwaadinimo ilaalinta waqtiga iyo daryeelka rakaabka ka dhoofaya garoonka iyo waliba si dhow inaan ola shaqeyno oo aan dhageysano dadweynaha cabashada iyo maartay baahiyahooda gaarka ah isla markaana aan ka jawaabno wax kasto annaga aan qaban karno qodobka shanaad ayaa ah in abaalmarinta iyo dhiirigelinta shaqaalaha ay tahay door muhiim ah oo noo suurtageliyay in maartay meesha aan marayno iyo waxyaabaha maanta aan ku faanayno inoo hergelay kaalin mugle ka qaatay mudan madaxweyne qaybta tan qof kasta oo muwaadin ah qof kasta oo shaqaale dawladeed ah oo isla markaa ka shaqeeya garoonka diyaaradaha mudan madaxweyne waxaan ku qiimeynaa kuna abaalmarinaa howlkarnimadiisa shakhsiyan iyo aqoontiisa iyo gudashada waajibaadka gaarka ah ee qofka markaa loo egmaday mudan madaxweyne hordhac kooban hay-adda duulista hawada iyo maamulka garoomada Jubbaland waxaa la magacaabay bishii Juun 28 2016 xilliga oo ay ku soo baxday wareegta heer madaxweyne wasaaradda gaadiidka iyo duulista oo laga hoos qaaday laga saaray garoonka lagana dhigay hay-ad madax bannaan xilliga ay maartay aan helnay degreetadii intaa wixii ka dambeeyay waxaa inoo qabsoomay kow dib u habeynta nidaamka dhismo ee maamulka garoonka mudan madaxweyne waxaa inoo qabsoomay horumarinta amniga garoonka muddada aan joognay waxaan aad ugu faani karnaa waxa dhacdo security ah oo garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan garoomada Jubbaland oo maanta maartay ama record aan xasuusana habeeraatay ma jirin taana maartay Allah weyn oo awood leh ayaan maartay iskale mahadda ka sokow ciidamada geesiyaasha ah habeen iyo maalin maartay u taagan in amniga ay sugaan xaqiijiyaan adeega garoonka in maartay sidii loogu talagalay uu u shaqeeyo ayaan ku amaanaynaa hirgelinta adeega cusub ground handling shirkadda Safari Aviation ayaa ka mid ah shirkadaha bixisa adeega garoonka shirkadaasi waxay bixisaa gaadiidka diyaaradaha gudaha maartay ka adeega ee boorsooyinka dadka qaado luggage-ka oo halka baaritaanka gaadiid loo geeyo oo dadka alaali markay baaritaanka maraanba lagala soo wareego iyo maartay shaqaale gaar ah oo ayada mushaarkooda ay bixiso ay soo kordhisay oo tiradooda 22 ay tahay iyo sidoo kale xamaaliga garoonka ee ka shaqeeya shirkadda ayaa maartay ayana sidoo kale maamusho iyo nadaafadda guud ee garoonka guud ahaan excellency maadaama systemkeena maaliyadeed uu yahay single treasury account dhammaan ilaha dakhliga ee garoonka waxaa toos u maamusho ama uu ku dhacaa accountiga wasaaradda maaliyadda annaga ka board authority ahaan wax dhaqaalaha oo gaar aan u maareyno ma ay jirto account gaar oo aan leenahay ma ay jirto kali ah haddii bil ay dhamaato mushaaraadka shaqaalaha iyo maartay dadka sida gaarka shaqaalaha rayidka ciidanka sida gaarka shaqada kule ee bodka payroll-kooda mushaaraadkoodii oo daily attendance loo fiirinayo ayaan soo process gareynaa iyo running cost-ga ee bodka kadib dhaqaalahaas wasaaradda maaliyadda ayaa lagu shubaa deposit slip ay shirkadu qaadataa annagana wasaaradda maaliyadda ayaan ka process gareysanaa waxaan nahay dad shaqaale ah goobaha kala duwan ee shaqada ay ka socoto annagoo og shaqada loo egmaday inay joogaan
haddana xafiis ma fariisano saacad kasta waan la taaganahay sababka aan u sameynayno waxay tahay inaan ogaano dadka adeega aan bixinayno inay ku qanacsan yihiin iyo xilliga shaqada loo qabanayo annagoo dul taagan inaan dhageysano qaabka maartay servicekeena uu baxaayo mudan madaxweyne waxaan leenahay waxa la dhaho suggestion box sanduuq dadweynaha aan u adeegno aan ugu talagalnay in garoonkan marka ay maraan haddii abasho ay jirto oo lacalla ay maareeyuhu arki waayaan in qoraal ay samayn karaan oo ay noo fariimo noo dhaafi karaan isla markaana aan ogaan karno adeega baxay iyo qof kasta oo garoonkan soo degay ama ka dhoofay dareenka uu qabo iyo waxyaabaha maaragtay uu dareemayo uu isleeyahay maamulka la wadaag hadday tahay cabasho iyo hadday tahayba faalla ama dhiirigelin ayaan helnaa 12 saacadood oo joogto ah ayay shaqaalaha garoonka shaqeeyaan maalin kasta 7 beri ee isbuuc hal beri ma nastaan 7 beri mudan madaxweyne garoonku waa uu furan yahay rikaabkana waa ka dhoofaa diyaaradahana maaragtay muxuu ahaay way soo degaan xafiisyadeenii dhammaantoodii adeegii waa furan yahay shaqaalaha sidaas ay u taagan yihiin hal mar ma nastaan 12 saacadoodna way shaqeeyaan waxyaabaha aan isleenahay laamaha kale ee dawladda waxaad uga duwan tihiin ama gaarkeena ay ka mid tahay in shaqaalaheenu halkaas ay shaqeeyaan 12 saacadood waxaa kaloo register aan qornaa ama dhaatada gelinaa waxa la yiraahdo QBD waxa waa shidaalka diyaaraddu ay haysato diyaaraddu markay kacayso waxa waajib ku ah hadii bari oo wax soo gaaro inaad ka jawaabto diyaaraddu shidaal intee wadatay hawada intee gashay dadka saarnaa intee dhanaayeen waqtiga kacday goormeeyd waqtiga meesha ku aadanayna goormeyd intaas laga rabaa marka intaas register gareena kadib haddana waxaan qoraynaa inta qof saarnaa meesha oo ku arta SOB waxa waa solis on board ama dadka saaran diyaaradda waxa ku arta meesha ATD da meesha ku qoranta waxa waaye actual time of departure waqtiga saxda diyaaraddu ay kacdo markii lugaha dhulka ka qaadaba la fiirinayaa iyo shaqaaluhu fiirinayaan kadib ay qorayaan qaybta kale waxa ku arta ETA lagu leeyahay waxa la estimate time of arrival waqtiga qiyaasta ee diyaaraddu meesha degayso wax sida sharciyada aviation ka 5 daqiiqo ku darsan kartaa 5 daqiiqo ka hormari kartaa laakiin qiyaas buu qaadanay ATA dan waxa waaye actual time of arrival waqtiga saxda diyaaraddu dhulka cagaha dhigata baa qoraysa hadana diyaaradda noocay tahay table fakarat waxa waa diyaaradda noocay tahay anaga waxaan ku qornaa sababtoo waxa waaye Soomaaliya uma qori karo sharciga aviation kala raacaya waxa artaan saacada tusaale diyaaradda waqtigeedu waxa waa 8:36 idinka macna caadiga saacadana saxda ma 3 saac baa lagu darayaa oo aviation sharciga marka diyaaradda waxay soo degtay 12:36 subaxnimo soo degtay koosado markii la ribadana laga qaado ma soo dhigi karna 12 baan qornay 12 hadaan qornay 36 waxay ka dhigantay 8 saac 36 marka markasta waxa waaye adii artaan saacadan waxa lagu darayaa 3 saacadood baa lagu darayaa waxaan codsan lahaa mudan madaxweyne xukuumadda cusub soo dhisayso in maamulka garoomada iyo hay'adda duulistu inaad wasaarad ka soo dhigtid maxaa yeelay waxaan annagu khadka ayaan ka baxnay waxaan khadka uga baxnay wasaaradna ma hoos tagno golaha wasiiradana kama soo qayb galno maalinka ay shirku ay leeyihiin oo aad shir gudoomiso golaha wasiiradu xubin nooga soo qayb gasho oo waxay dawladda ka wada hadashay noo soo dhageysato ma jirto wixii dawladdu ay ka wada hadashayna report dhameystiran loo keeno oo ka eleboor ahaan anagu aan ognahay ma ay jirto halkaas marka qorshihii dawladdu ay dejisay dhanka eleboorka anagu aadan u dib dhacnay waxaan codsanayaa in wasaaradna loo sameeyo annagana maamusho oo aan hoos tagno si maaragtay loo dhaqaajiyo sanadka 2020 hiigsigeena dhanka garoomada horumar aan ooga gaarno aadan u mahadsantahay madaxweyne wixii su'aal ah mid waan rabaa inaan idin sheego garoonkan waxaan ku rajaynayaa sanadkan in dib haween lagu sameeyo ama rawayga ha noqoto ama terminalka ha noqoto oo si caalami ah loo dhiso muxuu yahay idinka marka hiigsigiina airportka mustaqbalka aad hadda ka damacsantihiin maxaa idin muuqanaya waxa aad idinka dhiman rabtaan hadda inaad wax ka qabataan ama maxaa hadda muuqaalkiina dhanka hiigsigeena 2020 waxaan u aragnaa inuu yahay sanadkii dhismaha sanadkii dhamaystirka qorshaha dhismo garoonka Sayid Maxamed Cabdulle oo ugu horeeyo iyo dayactirka guud ahaanba garoomada Jubbaland oo dhan iyo in aan hirgelino oo dib aan maartay u hirgelino dhammaan haddii ay ahaan lahayd dayactirkoodii iyo shaqaaleyntoodaba mudan madaxweyne waxaan rabnaa 2020 hiigsigeena waxaa ka mid ah in garoomada Jubbaland dhammaantood aan wada hoos keeno systemka hay'adda duulista iyo maamulka garoomada Jubbaland si marka aan dhammaantood aan ugu sameyno shaqaale u gaar ah oo mushaari ah oo dawladda wasaaradda maaliyadda mushaarkooda maartay bixiso
hay-adda duulista iyo maaragtay maamul garoomadana accounti guud oo dhaqaalaha dakhliga garoomada ee dalka oo dhan maaragtay lagu soo wada shubo ay samayso oo hadda taas kaargooga la sameeyo laakiin qalab badan baad u baahan tihiin muxuu yahay qalabka idinka dhiman hadda garoonka ama ha noqoto hadda waxaad ii sheegteen 2 raadiyayaal oo noocyo kala duwan iyo mashiinadii intaas muxuu qalab ahaan maxaa idinka dhiman oo isleedihiin hadda qalabka aan u baahannahay dhanka horta screeningka security-ka mashiinaha hadda aan sheegnay aan haysano naguma filna maadaama mashiinaha hadda aan haysano ayna nagu filneen awood ahaan iyo populationka aan ku xisaabtamayno aan qorsheynayno ayna isku filneen inaan mashiino dheeri aan helno si aan u xaqiijino dadka maaragtay diyaaradaha raacayo iyo saacad kastaba in amnigii uu aad u horumarsan yahay waayahay aan u galo mid kale oo siyaasadda shaqadii ku saabsanayd flightka Dobley iyo Kismaayo imsay diyaaraddu qaadatay hawada ku jirtaa daqiiqadaha qaadatay imsa diyaaraddu say u kala weyn yihiin bay maaragtay hawada jaritaankeeda ay ku kala dheereen diyaaradda maaragtay Fokker 50 Embraer 30 daqiiqo ay u duushaa Kismaayo iyo Dobley waxay martaa hadda maadaama la joojiyay adeegii duulimaadyada ee Kismaayo iyo Dobley oo tooska ahaa muddada 4 bilood aan soo dhaafnay caqabadaha ugu waaweyn ee na saameeyay waxaa ka mid ah in diyaaraduhu ay Muqdisho maraan Muqdisho marka maritaankeeda waa saacad iyo bar oo Muqdisho iyo Kismaayo loo soconayo iyo waxay noqonaysaa 2 saacadood oo Muqdisho iyo Dobley ah 4 saacadood qiyaastii taqriiban 4 saacadood ay ku dhowdahay waa 2 safar waa Kismaayo iyo Dobley qofkii wuxuu ku raaci jiray $80 250 waa isku celcelis waa 2 safar waa in fact waan idinka mahadcelinayaa shaqadiinan waan qalabkana waan idinka sugaynaa waan rajaynayaa sanadka 2020 in arrinta garoomada isku xidhnaanshoodan wax iska bedeli doonaan garoonka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan shaqadiisa wax ka qabsoomi doonaan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto arrintan hadda Dobley oo kala tusaale aan soo qaadanay waxaa la mid ah ruutkii Nairobi waxaa hadda maarayu ka shaqaynayay markay soo mareen qoladii baaraysa garoomada iyo qiimeynta ku sameynaysa inuu standardka garoonkaani uu yahay garoon caalami ah haddana aan ka hadlayno waxaa nasiib darro ah inay tahay siyaasad aan danta shacabka iyo dalka iyo dadka mid la danaynaynin oo maanta qofka muwaadinka Soomaaliga ah in ka yar half an hour nus saac ka yar u soconaya Dobley oo gurigiisa uu yahay ama maamada xanuunsanaysa Kismaayo inta u kala soconaysay inay 4 saacadood iyo bar rooda soo qaadato oo laga yaabo mararka qaarkood intay diyaaradii ka tagto inay degto oo magaalada Xamar oo marka ayna dan ka lahayn qofkii uu gudbo waan ka xumahay taasna mas'uuliyadeeda waxaan rajaynayaa baarlamaankuna inay su'aalahaas weydiinayeen mas'uuliyiin ayna u baahan tahay ciqaab wadareed u baahan in jawaab loo helo waa ciqaab wadareed bulshada intaa leeg dhibaatada intaa leeg loo geysanayay mas'uuliyad sidee ah qofku ku sheeganaya ciqaab wadareedka intaa leeg ee saacadaha intaa leeg loo qaadanayay waa wax mustaqbalka laga xisaabtami doono taariikhdana geli doonta waxaan rabaa inaad ka diyaarisaan report qoraal ah oo ku saabsan ruudka Nairobi iyo wareegga qofku saacadaha uu ku qaato iyo kan Dobley iyo meel kasta oo ruudkeeda la wareejiyay waxaan aanan garanaynin waxa kala xidhay Soomaaliya oo dhan inay magaalo walba magaalo u furan tahay meel walibana international flight ay leedahay oo toos ay u tagto iyo caqabada siyaasadda waxa la isku hayo haday siyaasad tahay siyaasaddu haddii lagu dhaqmi waayo sharcigii oo dastuur lagu kala bixi waayey haddii siyaasaddii dowladdu mas'uuliyaddii ay qaadan weydo laga wada hadli waayey inay noqoto aargoosiga ay dowladda kari kartaay maanta jirtaay ciqaab wadareed inay bulsho u geysato oo nooca u dhaqanto taa macnaheedu inuu yahay inaynan ahayn dowlad matali karta shacabka gabtayna mas'uuliyaddeedii aan u qalminna inay ummad hogaamisay waa wax aad u adag marka waxaan idinka rabaa cadaymahaasoo dhan inaad soo qortaan cidday khusaysa lala wadaago baarlamaanka federaalkii u haya arrintiisaas idinkuna shaqadiina aad sii laalaabtaan aad baad u mahadsantihiin